عطها قبيشة وعلى الدينو وروين كورمانو عطو هيرانيسي علانكاك واهيغو شرفوغو هاغوغان عيداد واودن عطها قبيشة وعلى الدينو وروين كورمانو عطو هيرانيسي هيبال waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybal waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo haybal waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybal waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo hantiyay macaan waa midaan hoy laga odhane helayoon 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 daale weeyaan deegaankiisa hoodanka loo wada hamuume hanfi iyo kulayliyo baraf male dhulkeenu inaga halayne soomaaliye hoy daale weeyaan deegaankiisa hoodanka loo wada hamuume haybal waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybal waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo haybal waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybal waxaad ku hagarlihii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo hantiyay macaan waa midaan hoy laga شرفه هجوجان عيد عدوى هدن عطها قبيشة وعلى الدينو وروين كورمانو عطو هيرانيسي علانكاك واهيغو شرفه هجوجان عيد عدوى هدن عطها قبيشة وعلى الدينو وروين كورمانو عطو هيرانيسي haybal waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybal waxaad ku leedahay
hooyo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo halkiyay macaan waa midaan hoy laga odhane helayo halkiyay macaan waa midaan hoy laga odhane helayo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشيخ ابن أخي waxaan ka tagay hadda xisbiyadii qaranka saddexdii xisbi qaran way joogaan iyana waa mahadsanyihiin waa soo dhawaynaynaa guddoomiyihii baarlamaankana waa fadhiyaa isna ninkii saddexaad ee dalka ahaa marka ku soo dhawo maxamed بسم الله الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدومية بارلمانكا قولها وسيرادة حلبانا قولها بارلمانكا حلبانا قولها الدقانكا ما يرضى عاصمة سلاطينتا iyo dhammaan dadweynaha waxaynu ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii aad iyo aad waxaanu uga mahadnaqaynaa jiidda dheer ee aada u dhibta badan ee rafka ah ee aad soo marteen ee waktigiinii qaaliga ahaa noose weliba iyadoo maalin jimcaha oo fasaxa ay tahay waktiga aadna siisay aad buu noogu qiimo badanyay. waxaanaanu idinka codsanaynaa wixii halkaa hawlee ka yimaada ee naga gaabtayna inaad raalli nagaga noqotaan. intaa haddaan mahadnaqa ku dhaafo kelimadan odhanayaa waxay tahay degmadanu waxay ka mid tahay degmooyinkii iyo gobolladii dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu ku dhawaaqay. runtii waa degmo dee cusub oo bilow ah inkastoy tahay degmo aada u qaniya oo beeraha iyo xoolaha iyo macaadinta nooc walba wax lagaga tumayay ka jira. haddana waa degmo cusub kolley waxaan filayaa degmada iyadu nasiib degmooyinkii hore ee xafladaha laga qabtay aanu dheerraa jira waayo saddexda magaalo ee hareeraha inaga xigaba saddexdoodii maayer baa jira jooga maanta. taas waxaan u arkaa iyo sheekh iyo mandheera 5 maayer baa jooga. waxaan taa u arkaa inay tahay fursad runtii aanu dheernahay degmooyinka kale. soomaalidana waxaa u dhaqana degmadaydu de waa degmo cusub waa degmo iminka waxqabad doonaysa waa degmo hawl ballaareen runtii ay taallo. soomaalidana waxaa kolley u caadaa dee inan markuu reerka ka guursado waa laga yaabdhaa eeladiisa kalena waxay siisaa kaalo iyo goyn. kolley maayarada degmooyinka dee gobolka saaxil waa aabbaha iyo hooyo isagu yabarh baanu ku leenay isaga yabarhkii ayaanu ka doonayna. degmooyinka ama waxla caasimada labada caasimadii caasimad ku-xigeenka oo maayaradoodii joogaana gooyin baanu ka rabnaa. dadweynaha soomaali kale ilaana kaaladii baanu ka rabnaa. markaa waxaanu doonaya insha allah waxaanu jecelnay taana in idinala qaban doontaan oo hawsha ay idinala dhisi doontaan waktiga oo gaaban. iyo dadka waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiyaha gobolka saaxil maxamed cabdillaahi isagana falyatafadal. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا وكيل marka hore gudoomiyaha golaha wakiilada wasiirada xildhibaanada deegaanada iyo golayaasha kaleba salaadiinta meeyarada iyo marti sharafka kaleba aad iyo aad waxaanu idinku soo dhaweynaynaa
magacaabista degmadan cusub iyo xafladan loo qabtay ballaaran aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa mahadnaq weyn oo ballaarana waan idin soo jeedinaynaa imaatinka aad noo timaadeen ee aad nagu soo sharafteen baarlamaanka sidaa la socotaan degmadan waa degmooyinkii cusbaan ay kamid ahayd ee gobolka saaxil iminka 7 degmaanu leenahay degmana waa la magacaabi karaa oo dhibaato badan ma leh laakiin sida degmadaa loo hirgeliyo ayaa had iyo jeer nagu adkaata oo wadankaba ku adkaata degmooyinkana iminka way bateen sidaa loo sheegayna degmadan waxa weeye degma runtii hodana oo aanan mustaqbalka uga baqaynin laakiin dadka deegaanka ah waxaanu kula dardaarmaynaa inay cashuurta u furaan hadday beeraha tahay iyo hadday xoolaha tahayba waa meel istaraatiijiga waa meel dhaqaale leh cashuurta hura baanu leedahay sidaasay degmadu isku taagi karaysaa annaguna haddaanu nahay gobolka saaxil dee danbaa iskaayo badda waxaanu ka agranaynaa ma jirto harana xugalama nagaran jirin markii ay ahayd garanaysaa tuulada waxaanaanu filaynaa biidni illaahi oo aanu dawladda ka codsanaynaa meelaha ugu haraadku ka taagan yahay weeye in degdeg biyo qodis loogu sameeyo ceela looga sameeyo eriyada si dadku uga raysto dhibaatooyinkii darigi dhawata naga haystay ahayd biyo dhaamuska mar labaad aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa soo dhawaada baanu leenay degmada cusubna waanu u ducaynaynaa idinkuna noola duceeya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhawaanaya maayarka degmada berbera maxamed cabdalla maxamed carab oo aad iyo aad aqoon ugula degaan kara isagoo yadna ololihii waxbarashada joogi jiray bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu cala ashraf almursaliin sayidina nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin madaxda golaha wasiirada golaha baarlamaanka golaha guurtida salaadiinta waxgaradka aqoon-yahanada xildhibaanada kale maayarada dhammaan waxaan lenahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhaweyntii gobol ahaaneed waxaa dhameeyey guddoomiyaha gobolka wuxuun baan jecelahay inaan in yar bal ka hadlo degmadan cusube maanta aynu walqalayno ee la idhaahdo goda waxaa laga yaabaa dad aniga ila siman iyo inta iga yar weyn uunbaa horta goda macluumaad fara badan inay ka hayso laga yaabaa maanta magacoodu inaguma cusba xataa ninka xasuus dheer soo saari waaya wuxuu garan karaa hudheel caan ahaa oo goda weyn ku yaalay oo uu hayn jiray nin lahaa noola jiray guray gobood oo runtii aada u raasi macaanaa oo aada loo yaqaanay caan buu ka ahaa soomaaliyadii hore oo dhan somaliland iska daayo intaa haddii aan dhaafo 5 sannadood hortay 73 waxaan ka mid ahaa ardaydii nasiibka u heshay inaanu ka hirgelinno ololihii ballaarnaa af soomaaliga iyo talakoobkii soomaaliya beriga lagu samayn jiray run ahaan waa degmad ku hoodana oo kelimadii ilaahay u siiyey wax soo saarka iyo xoolaha daaqinka oo kaga duwan inay iska ilaaliyaan dhulka inay oodaan ooy u diidaan xoolaha daaqa waxay lahayd ceelal caana oo la wada yaqaano waxaan xasuusanahay abaartii dabadheer annagoo ardaya baanu joognay ilaa balledhiig ilaa gaashaamo dadkii ka soo guuraybaa noogu yimi ceelkaaga lihelow iyo halayo si aada u qiimo badan oo u sharaf badan oo martigelin leh ayaa dadkaa loo soo dhaweeyey waxa weeye degmo runtii aan ola karo hore ayay ugu lahayd xuquuq waddanka amba somaliland oo dhan marka waxaan leenahay maanta degmadeedu unbaa cusube aad iyo aad waxaad meel taariikhda ku jirta dad la socod leh dad la wadaag leh martisoor leh oon ka garan karo maanta anigoo runtii da gobolkii aan faanaynin taabiraada wanaagsan sare maanta gorotafiilkooda aad buu wanaagsana haddaydan naga yeerba suugaynin marka meelaha qaar xasanay intaa waxaan ku darayaa markaytay gobolka saaxil had yeeteer waxaanu ku yarfaanaa waa badda
laakiinse markaynu gobolka hargeysa joogno oo weli galbeed waxaa lanoogu faana had iyo jeeraale beeraha laga arabsiiyo iyo debile iyo horta waxaan leenahay waxaa ogaatay inaanu gacan libaaxna leenahay oo go-ana leenahay oo halkan quruxda badanna annagu aanu leenahay aad iyo aad ayaa sida qiimaha leh ee sarafka leh ee qiimaynta leh ee gobollada somaliland maanta halkan ay nooga soo qayb galeen aan uga mahadnaqaya ka meeyar ahaan degma ahaan berbera waxaan ballan qaadayaa gacanta ugu weyn inay noqoto ta ay ka hesho degmadani si ay noogu dhisanto oo kor ugu qaato ayaan ballan ku qaadaya waxaan ku soo gabagabaynayaa aad ba umahadsantihiin soo dhaweyn wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu u yahay maayarka burco maxamuud axmed xasan isna kelmadiisa hadda sii dhawo waraxmatullaahi wabarakaatu anigu salaada waxaan ku dhamaynaya alla wada sii kari maayo dadkiisa ku yimi salaanta islaamka ayaan ku dhaafaya intaa degmadan cusub waanu u hambalyeynaynaa waanaan u baarigaynaa iyo markiina la weydiiyeyna waa bixinaynaa haddii aanu nahay degmooyinka insha allahu tacaala ballaqaadkaana waanu qaadaynaa waxaa kaloo aan halkan dee mucjiso oo aanan anigu hore umaaniman kolley buurtan waana buurtan labaad baa laygu leeyada iyo meesha la yidhaahdo maxay ahayd daalo waa labada buuro ee dalxiiska ah waxaana soo jeedin lahaa in waddadana loo hagaajiyo magaalooyin ka soo gasha oo dawladda u hagaajiso lagana dhigo meel dalxiisa degmaduna dakhli badan bay ka heli lahayd dalkeennuna wuu ka heli lahaa oo ajaanibkaa iman lahaa marka waa meel mucjisaa degmada waanu hambalyaynaynaa insha allahu tacaala waxaan leenahay laga afriyo lagama afqaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meesha waxaan doonaynaa sharmashiik inay noqoto ama camp david inay noqoto oo adduunyadu ay ku jirto si somalilan wixii martiya dibadda uga yimaada ay ku jiraan baanu rabnaa taana in wax nagala qabtaan rabnaa hadda waxaan soo dhaweynayaa maayarka gobolka maxaanku dhahay caasimadda hargeysa bismillahi raxmaan raxiim guddoomiyaha golaha wakiilada ku-xigeenkiisa golayaasha wasiirada golaha xildhibaanada wakiilada iyo guurtida xildhibaanada golayaasha deegaanka salaadiinta culamaadudiinka dhammaan noortisharafta halkaas ku tumi waa salaamantiin mudanihi marwooyinba runtii maanta farxad weyn bay noo tahay in aanu ka qayb qaadano xafladan degmada cusub goono oo runtii taariikh weyn leh oo laga soo wada sheekeeyey oo qof kastoo reer somaliland uu og yahay kii aan ogeyna wuxuu ku xusuusto uu og yahay waxaan leenahay marka ugu horeysa hambalyo ayaan leeyahay talabaad waxaan ku guurinaha in degmada la dhiso dadweynaha degmadan lihinaha ay dabada iyo gudahaba sidii loo horumarin lahaa degmada lagu tallaabsado oo laga faa'iidaysto khayraadka ay leedahay ee buurta iyo banaanka iyo beerahaba leh iyo dalxiiska ta kale maayar ahaan caasimadana aniga weliba waxbaa iisii dheere waanu ogol lahay عمر جامع عادي عمر جامع فرحة بسم الله الرحمن الرحيم madaxda golaha wakiilada wasaaradda dadweynaha faraha badan ee kasoo qayb galay aad baan idin salaamaynaa runtii de maanta waa laga warramay taariikhda degmada goo iyo inay qaadi karto degmo ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland uu ku dhawaaqay inay noqoto degmo runtiina waxay ka mid tahay de waxyaabaha inta xisbigaygu talada hayo uu muujiyey inuu degmadan u soo hooyo inay noqoto degmo ayay farxad weyn oo ah inaanu maanta xisbiga talada hayo udub madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland
ahna guddoomiyaha xisbiga iyadu inuu idiin garto ka mida waddanka taasi waa taa waxaanu rajaynaynaa in taageeradii ay hore noogu hayeen inoo soo jireenna noogu kordhin doonaan ayaanu iyana taasaanu aada u rajaynaynaa waxaa halkan jooga golihii wasaaradda oo runtuu wax badan qaban doona oo u yimi halka kan inay taageero hiil iyo hooba idinku siiyaan xisbigu markuu talada helo wuxuu leeyahay executive talada fuliya waxaa halkan idinla jooga wasaaradii oo aanin ka maqnayn haldoorkoodii oo dhan waxayna ilaa intaa u soo socdeen kalgacaylka iyo wanaagay u hayaan iyo sida ay rabaan inay degmada wax ula qabtaan runtii waana rajaynayaa sidaa meeraduna waxay idinku ballan qaadeen xukuumadda iyo xisbigaygu inuu idinla diyaar yahay wasaaraduna halkan ay ka sheegi doonaan waxyaaba badan ay degmada ka qaban doonaan waan hubaayo wasaaradda daakhiliga ugu horrayso kulley maamulkii dhismihii iyo fidintii maamulka iyo adeegyadii bulshadoo lasoo gaadhsiin doono waxbarasho ha noqoto caafimaad ha noqoto meel walba ha noqoto iyaduna wax fooda idinku hayo idinku soo kordhinaya waana faa'iidooyinka ay soo kordhinayso degmooyinka la magacaabay maamul fidinta waxaanu rajaynaynaa inaanu midho la taaban karo oo xisbigaygu ka samayn doono sidaa uu degmadaba u garto ugu magacaabay in wax weyneel dhowaan loo soo kordhin doono horena wax badan dadweynaha loogu qabtay aad baan idiin salaamaya wakaamantii waxaan u malaya inuu wax weyn oo ma garanaysaa uu badda soo dhaweyn doono mar malayna ama sharmasheekda ma garanaysaa inagu ballan qaadi doono بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي قدوميها قراءة وكيلنا عبد الرحمن محمد عشر قدومية كحجينك وسيرنا الكفردية مدحنا صدح لقولة أما حلباننا يقول كذا مرتي شرف سكرة سلاطينتا علماء الدينك دمانتي وحمد السلام يا سلامتا قيمها طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتا بديت شرف بيتها يعني وقوها طيّة مقع حقان كحزبي وكلمية كلية سدحة قراها فلينتا شرف بيتها يعني كسو قيب قلو حفلتي اللوغو وانقلي اللوغو مقع عاضي دقمدة عصب قاضي كرتا ونقلنتا دقمة يوح كوين با وقوضا وين شرف بيتاسيتا انتا دبديد وحان خدشينيا مدحدا انتا لك قيمة انتا اي سيسي كسوقيت كالكيدا هدي قناعسة تهي هدي علماء الدين تهي هدي مدحدا حسبيادة تهي هدي اسمضي الصلاطين تهي انتو بوحي كبرخاتي كعيسا قيمها وين قوضا وين وقفة جنو ومدى سوال لان كارهان iyo mandaqada geeska Afrikada hadii si dhaqso ah loo maalgeliyana shaki kuma jiro inay dowr shariif ka qaadan doonto horumarka iyo dhismaha jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa sanadteeda in bilic hor leh iyo maalgelin hor leh ay la koobsato dhammaantiin waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أنا وقف وهي قدومي كحين قومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدوميها قراء وكيلة كنتيجينك جبانة قراء وسيرة قراء ديجانة دمان مرتي شرفتا halkan isugu timi dhammaantiin mar labaad waxaan ugu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa intaa ii raaca anigoo ku hadlaya magaca xisbiga urxid inaan hambalyo u soo gudbiyo degmada tan iyo munaasabadda tan aynu maanta u joogno halka kan oo ah wanqalkii degmada cusub anigu waxaa soo jeedin lahaa in degmada la yidhaahaa degmada gacan libaax ee go'da waxaan leeyahay hambalyo waa degmo istaahisha madaxii waa lagula dulkufay laakiin waa istaahisha horaanay ahayd waxaanan ku hambalyeenaynaa waxaanan dadweynaheeda ka codsanaya oo aan hubaa haddii ay gacmaha isqabsadaan inay ka midha dhalinayaan oo degmooyin horoo jiray ay dhaafayaan taasoo ah waa dad
dadka deegaanku isku duuban waa dad marti sharaf dadka martisoorka aada ugu horeeya waa dad markay wax qabsanayaan talo wadaag leh oo u jajaban inay horumarka deegaankooda wax ka qabtaan insha allah billahi alkariim waxaan ilaahay ka baryaynaa si tawfiiq leh si wada jira in degmada looga midho dhaliyo waxaanan leeyahay ballanqaad kastoo laydiin sameeyo haddii aan dadweynaha dadka deegaanku aanay isku duubnayn oo si wada jira aanay horumarkeeda iyo degmada horukaceeda aanay iyagu ka shaqaynin cid uga shaqaynaysaa ma jirto cid saxan loogu soo ridayaa oo la leeyahay xuquuqdiinni waa kane qaata haddaanay iyagu garanin oo aanay qaadan iyagu ma helayaan waxaan leeyahay oo hadda intii aan halka kan aan joogay fariin layidhi inaga gaarsii qolada wasiirada ah dhismayaal halka kan inaga dambeeya oo la yidhi way ballan qaadeen raggii ballan qaaday inay wax ka qabanayaana way joogaan ayaa la yidhi xasuusi bal inay dhismayaasha ay wax ka qabtaan waxay la tahay meeyarada halka kan ka ballan qaadayna waxa weeyaan waa wax xaq laydinku leeyahay inaad degmada tan cusub gacan qabataan dee golihiina maanta oo wada leeyahay maca wasiiradii halkay ka baxdaa waa bakayna qaleen baanu leenahay annaga ballanqaadkayaba waxa weeyaan markaanu talada dalka qabanno markaasay noqonaysaa ballanqaadkaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jiif xildhibaan jiifa duqaashuba siday u kala horrayso ayay jiif u kala sheegtaa marka xildhibaanada aagga kan xildhibaanka jiifka ah waxa weeye siciid cabdillaahi yeesir ee ku soo dhaweynaya اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعلى دمان مرتي شرفته مسؤولية كستيليهين dadweynaha dhammaantood waxaa leeyahay sida noo soo sharigteen ee noogu timaadeen ee mas-uuliyaddii aa hayseen aa maanta tidhaahdeen tan aan qabanno sharaf iyo qiimayn iyo qadarin bay noo tahay waa ku mahadsan tihiin insha allahu waanu ka abaadcelin doonaa annaguna waa midda kale waxa weeye wasiirada oo dhan waxa weeyaan sidii saaxiibadaydii iga horreeyey iyo odayaashii xasaabtay ka hadlayay ay ka hadleen waa uga fadhinaa in ay waxqabadka gacanta nagu siiyaan annaguna aanu hormood ka noqonno albaabkiina in badan baanu garaaci doonaaye hanu u dhibsanina hawshu way noo cusub tahay dardar baanu gelinaynaa idinkana dadaal iyo dardar iyo gacan fidsan ayaanu idinka codsanayna midka kale waxa weeye runtii muddo dheer oo dhowr iyo 30 sanadooda ayaanu doonaynaan lahay degmo hanabas ilaahay mahadii maantay